الرحيم الحمد لله رب العالمين umada Soomaaliyeed meel walba aad joogtiin waan salaamayaa saxaabteeda Facebook-na waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan u soo galay maanta aan rabaa inuu ila yareenaan ka waramo arinta oo la isla dhaxmarayo ee labadan biri wariyihii ka been sheegay madaxweynaha isku jiin buu xadiyay aan rabaa inaan ka waramo iyo xasan sheekh wax ka yira iyo fiiqi iyo ilaahay kuma samtarnaade mahad salaad su'aalo dhowr aan weydiiyaa waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed horto dadka waa dad aqli leh wariyaha hadda maanta dhahayo madaxweynaha wuxuu xadiyay isku jiinka war madaxweynaha muxuu isku jiinku falayaa madaxweynaha waa umada Soomaaliyeed madaxweynaheedii war boqolaal xabo heli kariyaa war dadkiinu mucaaradkowna waxaan leeyahay war hawsha meeshas meeyni la tagto waa yaabanahay hawsha meel kale wax ka soo qabatiina inta waysana madaxweynaha wuxuu xadiyay taagantiin war waxaan leeyahay dadkan wariyaalsha isku sheegeen wariyana dhahayo umada Soomaaliyeed inay war u soo taabiyaan rabaan war dadka wariyaha akhlaaq uu leeyahay wariyaha wuxuu leeyahay akhlaaq uu ku howlgaliyo marka waxaan leeyahay nin walba inta wariye ah iskiiro maqaayad yar iska shitay waxaan leeyahay wariyaha doona cadayhaynin waxa hawsha waa ninko wax ka sheeg waa nin madaxweyne maanta xasan sheekh waxa dhahay dimuqraadiyada ma shaqeyso wariyaha xornimadiisa la siiyo war xasan sheekh nin dambigiisa lahaay baraha bulshada soo dhigay yiri wal xal xaday war waxaas wax loo dulqaada kara ma tahay war xasan sheekh waxa ku leeyahay inta horta dambiyo soo gashay inta qofoodo soo xirtay inta qofoodo dhibaato u geysatay horta buugaada gadaal u akhri koow markaas dimuqraadiyinimo sheeg dadka la hadal war waaba la yaabanahay xasan sheekh mahad salaado fiqiyo idinka ma soo adeejisanaa ninka lacagta soo siisay waxaad la doodaysiina la yaabanahay ninka dambiga lagu haystaa dambiga duu caday waayna anigu waxaan ka codsaa dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsaa wariyaas 2 sano dhaqan celin in lagu sameeyo 2 sano oo dhaqan celin ileen dhaqankiisa ba wax fiican ahayn wuxuuna hubinoo sheegay abu geedaas la xaday waxa la xaday isku juun waxa xada madaxweyne war madaxweyne isku juun ka badan oo haasta diyaarad buuxda haduu dalbada la soo diraya ninka waa madaxweyne Soomaaliyeed waa umada Soomaaliyeed sharafteedu xambaarsan yahay war maxaa niga maxaa ka dadka waxa leeyahay nimankan u doodayn walaalayaal saas mucaarad lagu ma noqdo saas waji lagu ma helo sharaftiina ku dhaceyso war dad waxa tiin ma sha Allah tabarakallah maanta mustaqbal wadanka ka rabo waxa leedin doorasho soo galaan war xas hore u soo xukumay intuu soo halay horta ha akhriyo buugiisa gadaal intuu u akhriyo waxa dhibaato uu soo gali horta ogaado mahad salaadna waxa leeyahay adiga mahad war waxaan leeyahay horta dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay dawladda Soomaaliyeed waxa ku codsaa sharci dadka kala qabta keena Sheekh Shariif hadda waad u xukuntaan cadaalada u sameeysan intaas oo kuno dollar siisay $35,000 waxaan leeyahay nimankan xasan sheekh iyo fiqi iyo mahad salaad sharciga qabalaha ay keena ha cadeeyana meesha madaxweynaha wax ku xaday ninka wariyaha u dooda waa madaxweynaha wuxuu xadalay waay dhaay mugdi dimuqraadi waxa ma jiraan dadka la cabura war dadka maxaa lagu caburiyaa dadka maxaa lagu cabara nin wariyo sheegto waa nin idaacad u shaqeeyo waa wuxuu soo dhigi madaxweynaha baba xaday ma haya jawaabdeeda waxaan leeyahay wariyahaas nu jeeda hal xukuma lama sano inta lagu xukumo dhaqan celin ha lagu soo sameeyo anaaba dhahay had saacan la joogo war wariyaashu waxa dalka dumiyay kamid wariyaashu waxay yihiin wax dulmiga ka shaqeeyo waxaan ilaa wariyaasha Soomaaliyeed oo idinkana dalka idinka leh niman dhalinyaro ahaatiin wiilal dhalinyaro iyo gabdho dhalinyaro ahaatiin war walaalayaal waxaad sheegaysiin iyo waxaad qoraysiin iyo waxa baraha bulshada ku faafaysiin horta ogaada maxay yihiin ma dalkaada ma wax ugu dhimay ma dadkaada wax ugu dhimay maxaa si ka war mucaaradna waxaan leeyahay horta dad yaalo dadoo yaabaya xasan sheekh maanta wax sheegay xasan sheekh maanta waxa dhahay dad xurnimo laga qaada xasan sheekh wuxuu taariikhdiisana gadaal uma akhriyo war waxaan ilaa umashi waxaan qata xasan sheekh umashi faasha kulul ilowda naqatay ma fahmi
ummadda Soomaaliyeed ka fadhiisa Xasan Sheekh war Xasan Sheekh oo maanta dimuqraadiya sheegay adiga dhibka aad geysatay dhibaatada aad geysatay waxa dad kugu sukeeyay ilmahaada abtiyaalkooda Daawudnimo samo Axmed Daaci aad dad kugu sukeeyay inta ku duusha inta soo gaar ku dishay war walaalow markasta ku sheegnaa wax walba ku sheegnaa maanta waxa taaganta wariyaha la soo wariyaha nidaamkiisa la maraa sharcigu wuxuu ka heliyo leeyahay asiga cadeena laga rabaa cadeenta ha keeno madaxweynaha ma wax ku xad ha keeno madaxweynaha ma Abu Badar geed ku xad ha la keeno waxaan leeyahay madaxweynaha waxaas camal waa ka weyn yahay dalka uu leeyahay dalka iyo dadka diinta uu dhaareeyay war dadka dhan uu xukuma war waxa sheegay boqolaal xabo helaa hal xab iska dhaaf boqolaal xabo helaa war maxaa siniga idinka maxaa sika wariyaasha maxaa sika marka waxa la wariyaasha Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal dalkiina ha duminina waxaad qoraysiin waxaani lahaado waxaad sheegaysiin yani waxaani lahaado ogaal u yeesho hadaladan iga soo baxay ogaal u yeesho war waxaan leeyahay dadkan Soomaaliyeed wax sika ama sheegan nimankan siyaasiyiinta isku sheegay baarlamaanka Soomaaliya dhex fadhiyeen ma salaad iyo fiqi ha laga qabto wax dhaxata oo looga aamusay wax dhaxata oo shariicada ka soo horjeeday ku hadleen waxa la leeyahay ma salaad hala soo joojiyo hala yiraahdo adiga meesha wax ku xad farmaajo sheeg farmaajo ma wax ku xad cadeynta ha keeno wariyaa marka uu doodayso waxa waaye dambi magalna hala soo daay camal waxa la leeyahay Xasan Sheekh asagana hala marsi sharciga war Sheekh Shariif lagu bilaabay Sheekh Shariif cadaalad ma loo sameeyno ayakan nimanka cadaalad hala marsiya la xirxir hala aruuriyo cadaalad hala marsiyo xuquuqo yani sharciga muslimka waxay ka helaan hala marsiyo maalin walba madaxweynaha waxa sameey war rafashada u dambaysa taaganti waxa taasiin ma jirto rafashada u dambaysa taaganti meel walba Soomaaliya ka soo gashaan meel walba ina ka dumiso warkii badda gadana dhex joogo anaka Soomaaliya haday ku kacayso mujada haday ku kacayso ninki badda saxiixay yiri xooliis Soomaaliya dib ana dhex jooga waaga doorasho u soo safan Soomaaliya haday ku kacayso yani waxyaalaha qodad ku kacayso oo isleedin madaxweynaha isku jun haday Soomaaliya yani kacdoon shacab ay ku sameeyay islaada ha ka yaamina kurataas ha ku riyoonin walaal ha ku riyoonin ninki badda saxiixay ana dhex joogo saxiixa leeyra ana meeshan ana dhex joogo ma fahmi waxaan joogo saaxiib ma ogiyana dhex joogo aan Muqdisho inta joogo hadda garbaad inta soo xirto waclee madaxweynaha raba ma fahmaysiin war anaka waxaas camal lagu kicma dadku waa ka aqalbayn dadku way ka waxbadin Xasan Sheekh adigana waxaan ku leeyahay walaalow taariikhdaada gadaal u akhri wax baa la hada iyo wariyaa la xiraa la caburi wariyaha duu dulmi gal waa la xiraa sharciga waa qaba kama weyno wariyaa sharciga ma ku weyn kama weyno sharciga waa qabaha هادو wax lagu yani cadaan keenan markaas asigana shariicada muslimka waxay ka qabtaa lagu sameeyo la soo daa xurmadiisa hadu cadaan ku keenan shariicada islaamka waxay ka qabtaa lagu xiraa wixii lagu xukumo maxkamadda ugu soo baxay oo yani uu hela dulmi inta lagu qoro madaxweynaha waxa haday war waxaas wax laga dheelamaya war waxaas wax dalka lagu dumiyo waxa xeed dulmiga la isku garba saari war waxa leeyahay walaalayaal ma salaad waxa ifaqi Xasan Sheekh hada qosado ayaka adeejiin ana ku dhahay ayaka adeejiin dhahyireen hadda nin wariyaas hala baaro يعني هلا بارو محرنو هلا بارو ما صلاد يحاد Xasan Sheekh ay ka dambeeyaan ilaa waxa la dhariga maxaa karkarka ka keenaa liir kuleelka dhariga maxaa karkarka ka keenay wariyaadii la qabta maxaa karkarka ka keenay maanta xuriiqalka yani alagu waxa war xuriiqal maxay tahay ninka asoo duurka isku joog wax sheegin ma la soo qabta maya waxa la soo qabta asagoo ku qoray Facebook baraha bulshada ku qoray waaya la qoraalkiisa akhrisada gadaal u akhrisada maxaa saniga مد Soomaaliyeed waxa uu sheegay kaas camal mujeeda Xasan Sheekh walaalow waxaad sheegtid waa laga daba sheegaa waxa taariikhdaada gadaal uma akhrisid yani waxa soo dhaftid moogda afkaada iyo maskaxdaada yani ma isla socdaanbo afkaada wax ka soo baxay maskaxdaada wax ku jiro isla ma socdaano waa iska hadala u hadashaa waray waxaan ku leeyahay walaalow يعني waxa ku dhimo ma jirto ceeb kale ku dhimo ma jirto waxaan ku leeyahay niyow naga fadhiiso Xasan Sheekh oo naga fadhiiso hadda maanta waxa leedahay wardadaad laaysa dad dhiiga gashay dhiig aakashay Axmed Daaci muka soo cirata meeqanina oo Daawudnimo samaa aadishay meeqanina dish ii sheegbo isiga jooga afkiisa ka cadeen maxaa ku haysatay ii sheeg maxaa ku haysatay cawl daahir Allah una xariista maxaa ku xirtay ii sheeg maxaa wariya dib
mo galin warqad mo inta qoro galin dad wareystay ku xirtay Allah u naxariistay warniyo waxa ku leeyahay naga fadhiiso caawil daahir maxaa ku xirtay dad wareystay dad wadaago gali dadkii aad run sheegan runta maxay u sheegaan ku xirtay maanta waxa leedahay ya salaam kuma ayna hataa kuma dhii madaxweynaha waxada kuma dhii madaxweynaha waxa kuma dhihin dad wareystay dadku wixii runta sheegan xaaladaan ugu haastaa iyo gumeysaan ugu haastaa heedeen dada hataa afkoodka sheeg asaga ma sheegin wareys luuqade markaas xirtay xiriiqolka markaas ma jirin markaas dimuqraadiyada ma jirin ya salaam ma jirin miya markaas war xasan sheekho waxa ku leeyahay taariikhdeeda gadaal u aqri xasan sheekho inta soo xirtay axmed daaci maxaa ugu duushay maxaa halaas dadoo dhigooda u laaysay Uganda's ugu adeegsatay war walaalo waxa la naga fadhiis xasan sheekho taariikhdeeda la yaqaan intaana taariikhdeeda soo qodqodin meel walba ay kulu galin walaalo iska fadhiiso waxa waay rafashada u dambaysa taagantiin madaxweynaha waxa haday waxa u aqaana taas يعني هل رجع عن جذا كمال حتى أقانا تسرع رجع عنتين وعني لا مركه dadka maanta golaha shacabka noo dhax fadhiyo waxaas camal golaha shacabka noo fadhiyo xildhibaan noo sheegahay waxa dhahayaan xildhibaan qaranana waxa xildhibaan qaran ka tahay maxaa ka tahay ninka yani dambiga galay wali u doodaysiina wax leedin xuriiqolkiisa hala sii hebelo hala sii wala waxa wareeda kana marka madaxda haysan wax xirxireeyay xasan sheekh iimaan salaadna wax isla ogyiin waay ayaka soo adeegsadeen wariyaas ayaka soo adeegsadeen ayaka booshaas galiyeen haddana qurax loo baaro waa la arki doona dambigana way nigu imaad doona waxaana tiin tuugooshin waxa tiin dulmulooshin waxa tiin dad la iska celin dad arunta loo sheegnatiin umada yani dawladda Soomaaliyeed waxa uu sheegay war dadka sharci kala reeba keena nin walba wuxuu rabay intuu iska sheegin war dadka sharci qabahay keena xildhibaanada sharci qabahay keena war xasaanad hada wata xildhibaanka xasaanad hada wata waxa la rabaa in sharciga uu qabeeyo xasaanad waa wadayaalo sharciga inuu qabeeyo maanta wuxuu u doodaa nin wariye madaxweynaha Soomaaliyeed yiri wuxuu xadi oo u doodaa uu taagan yahay wuxuu ku leeyahay xildhibaan qaranahay maxaa xildhibaan qaran ka tahay sheeg waxa ka tahay sheegbo yani madaxweynaha wuxuu hadalay ka turjumay يعني نكان رنو شوقها لا سوديو marka adikii waxa yiray iki waxa isku halaatay labadiin waxa isdhaantiina malo marka waxa la dadka sharci kala reebay keena dadka oo yani xasaanada sito sharci kala reebay keena yani sharcigaas loo hogaansama keena ale farmaaji qaro waxa keena sharci keena oo dadkan kala reebo maalin walba xasaanado wata heer habalow dhashay heer habalow kana ay waxas kuma jir karno waxas ma dhageysan karno nin wari oo dambi galay oo dambi geesto oo baraha bulshada madaxweynaha waxaday oo haddana cadaan u haynin cadaan uma haayo waxa uu haayo ma jirto waxa la leeyahay xildhibaan yani xildhibaanana inta soo istaago waxa leeyahay war nin dhano madaxweyne soo maray oo maasha yani Soomaali soo maamulay intuu geesto og dambigo geesto og oo wax walba qoftu soo xiro og dadka u dilo og maanta dhahay waxa lagu xad gudbay xurta qolka war aad xurtii qolka intay jirto marka adiga haysay 4 sano ku fadhido kursiga intay jirtay sheeg markaas inta la jiray sheeg dhagola ahada uma leeyahay dhagaa ku furasnaa ya salaam ya salaam wala la runta yani haysan tarin walaalo ceebtaada ogaaw waxa taa ogaaw gambarka ku fadhida ka soo kicina ku leeyahay xasan sheekho wax ku dhimo ma jirtee walaalo na iska fadhiiso wax ku dhimano hadda biriga la dhahayo ma jirto waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed waxa leeyahay war umada Soomaaliyeed waxa leeyahay yani umada Soomaaliyeed ninka xaday oo badooda iibsaday saxiixa dhax fadhiyo madaxweynaha waxaada ku kicimayso haysadina shacabka kici doono shacabka ku kicimaayano aad waxa haday shacabkan waa soo wada jeedaan dawladooda ilaashaan waa soo wada jeedaan wala la wad socda dulmi ina ku socotiin oo dulmulooshtiin waa niila jeedaan waan in iska celiha marka walaalayaal ceebtiin meelaad roogtiin walaadiin walaalayaal ceeb kale ha ku darsanina dad aqliyasta naqda dad maaragta waxa naqda marka haduu ilaahay yaraaho waxa ku soo gabagabeeyaa marka waa ka sii baxay insha Allah Soomaaliyeed waani salaam insha Allah waxa ku soo gabagabeeyaa halko baraambur haduu ilaahay yaraaho waana ni salaamay waxa la dadka waaweyn maaragta xildhibaanada
sharci qabaay hala keeno sharci dadka kala reeba hala keeno haddaana sharci dadka kala reeba la keenin walaal maalin walba waxaa la soo istaagaa maalin walba yacni waxaa dadka u qalminaa la sheegayaa marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeedna ha guuleystaan dawladda Soomaaliyeedna ha guuleysataa leeyahay waxaan leeyahay ogaadana shacabka inuu dawladda la jiro ogaada aqligiina ha shaqeeyo ogaadana shacabka dawladda ilaashadooyeen ee fiirsadooyeen maalin walba wixii laga sheega ognaay ee media la socono ogaada marka aqligiina ha shaqeeyo aqligiina waa fadhiya wili waa foorara waa yacni wili madaxa ku socoonaa taagantii dadka lugaha ku socdaan ee aqliyeesta dad madaxa ku socdaa tiin lugaha ku socotiin lugaha ku istaaga taasaan leeyahay bulshada layga beeray ba haq baan idin wada bulshada layga beeray ba haq baan idin wada oo dhambaaliya dhiirigalihin baan idin wada dhambaaliya dhiirigalihin baan idin wada dhulkaynan beerano hodhiflasuu baxna dhulkaynan beerano hodhiflasuu baxna dhaqaala sameysana ha odhiteysana dhaqaala sameysana ha odhiteysana sharciga la ilaaliya ha oo shaqeysana sharciga la ilaaliya ha oo shaqeysana oo salkaynan dhigano hu ani saacidna asalkaynan dhigano hu ani saacidna asareda kuwarna weheyno Soomaalid esareda kuwarna weheyno Soomaalid Shaya kamaharana ha oo shaqeysana shaya kamaharana ha oo shaqeysana bulshada Soomaali Rabbi baan idin baryaa bulshada Soomaali Rabbi baan idin baryaa cudurka faahfaahaya uu calankan gelgelay cudurka faahfaahaya uu calankan gelgelay oo cilaajna loo waayayo calanka kacabahada aan cilaaj lahayn calanka kacabahadayo aan cilaaj lahayn ikaruna lagu sheega rabbiyowna bahalmarsi ikaruna lagu sheegay rabbiyowna bahalmarsi hawada naga raaci rabbiyowna bahalmarsi oo badaha ka tilaabi rabbiyowna bahalmarsi taladan ku dhiibay rabbiyowna tahakuley oo taladan ku dhiibay rabbiyowna tahakuley Soomaali ha noolaataan ilaa waan salaamiya insha Allah waa ka sii baxa haduu ilaahay yaraa waxaan ilaa Soomaaliyeey waxaan ilaa caafimaad han nasiyo cuduradan ilaahay naga mootiyo ilaahay waxa la coronavirus ilaahay rabbi oo raxmaano badaha ka tilaabi ilaahu dabeesha naga raaci ya rabbil caalamiin ilaahu ummada Soomaaliyeed waa masaakiin ilaahu u gargaar ummada Soomaaliyeed waa masaakiin ilaahu u gargaar ilaahu corona tabar uma hayna ya rabbil caalamiin ilaahu aday ummadaada tahay ilaahu dad masaakiin oo daciif ahna ilaahu na reed qaadsi ilaahu ummada Soomaaliyeed waa masaakiin ilaahu u kaalmeeya ya rabbil caalamiin meel walba ay joogto waxa leeyahay dad isjecel dad isku soo hilooba dad walaale aan naqano waxaan leeyahay insha Allah
بإذن الله كريم إلهي ما ركت إلهي هنقاد عذرضان يا أفدان جرت يا رب العالمين إلهي هنموتي وأنني سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.